بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan ku guda jirnay course-keenii CSS-ka waxaynu ku dhisanay mini project kaas oo aynu isticmaali doonaa labada luqadood HTML iyo CSS-ka sidaa awgeed waxaynu maanta baran doonaa ama casharkeena aynu ku darsi doonaa qaabkii aynu qaybtii hore aynu soo sameynay oo waxa weeyaan home page-ka aynu wax cusub ugu soo dari lahayn sidoo kalena wax hore ugu jirayna aynu style-kiisa wax uga sii bedeli lahayn okay qaybtii hore aan soo sameynay waa qaybtan waxaynu u isticmaalaynay home page ahaan inagoo content-gana ka soo muujinayna sidaa awgeed waxaan leenahay qaybtii hore inoo ahayd oo qaybtana haddaanad soo daawan marka videogii hore dib ugu noqon soo daawo then waxa weeye qaybtan u kaale marka qaybta soo dhamaysid okay waxaan ku darsan doonaa oo waxa weeyaan rabnaa inaynu barano qaabka loo sameynayo waxa loo yaqaan border button-ka sidaa awgeed waxa weeye ku tilmaamaya qaybtaad markaa joogtid isagoo waxa weeyaan underline-ka hoose kugu sameynaya okay qodobka labaad aan ku baran doonaa waa qaabka loo soo gelinayo anchor ama button-kaas oo inoo sameyn doona inuu hadhow lifaaq inoo sameeyo meel inagu xidho qaybta saddexaad aan ku baran doonaana waa qaybtan sida aynu waxa weeyaan home page-ka aynu soo sameynay aynu qaybihii kale aynu ugu soo dari lahay marka qaybtan dhexda ayaan u isticmaali doonaa sidaa awgeed content-gan ayaan kasoo muujin doonaa sawiradana waxa weeyaan waynu soo gashan doonaa sidaa awgeed labada column oo saa isku barbar yaalla iyo rowyadooda ayaan u isticmaali doonaa inaynu isbarbar dhigno sidoo kalena lifaaqyadan hoose iyo qoralladan xaggan hoose kaga qoran ayaynu waxa weeyaan ku darsi doonaa qaabka loo soo gelinayo style ahaana waxa weeye CSS-ka sida loogu fadhiisanayo marka insha Allah ujeedkeenu maanta waxa weeye waa inaan intaa barano marka si aan intaa u barano ama u dabaqno waxay noo fududayn doonaa inaynu qaybihiina soo gashano hore waxaynu u sameysanay oo aynu ugu sameysnaa folderkan waxay noo soo baxnay website-kii baan markaa folderkii baan soo furan doonaa waxaan u baahanahay isweydiinaya maxaan u baahanahay materialka laba sawir baan u baahanahay marka labada sawir aan u baahanahay ayaan markaa soo qaadan doonaa halkan ay yaalin Ctrl+C ayaan leeyahay then folderkii ayaan ku basti garaysanahay Ctrl+V ayaan markaa siinaya inta markaan soo sameysto waxaan leeyahay HTML markaan ayaan leeyahay right click then waxaan siinaya open with note VS Code-kii baan kusoo furan doonaa sidoo kalena CSS-tana isagana waxaan siin doonaa waxaan leeyahay right click open with baan leeyahay markaa VS Code-kii baan kusoo furi doonaa hadda labadiiba waxa weeyaan waxay ka dhigan yihiin marka inay halkan igu furan yihiin HTML-kii iyo CSS-kiiba okay inta markaan sameeyo waxaynu u iman doonaa qaybta ugu horeysa waxaynu soo sameyn doonaa inaynu button-kan aynu ku soo darsano markaan wax cusub ku soo darsanayno waxay shardi ahaa inaynu HTML-ka inaynu ka bilowno oo waxaan leenahay marka ugu horeysa HTML-ka ayaad waxa shaygii aad ku tilmaamsanaysaa maadaama isagu waxa weeyaan shay kasta oo waxa weeyaan hanaankii uu yahay ama skeletalkii laga soo bilaabayay ama qaybtii laga soo budhigay uu yahay marka waxaan tagi doonaa qaybta ugu dambeysa paragraph-kii iyo qornaa baan waxa weeye enter baan siin doonaa qaybtana marka ay soo bixi doonto halkaas ayaan waxaan ka sameysan doonaa qayb loo yaqaano anchor marka ay dhahdo enter baan siin doonaa enter markaan siiyano waxaan leeyahay qaybta anchor-ka value-ga la gelinayo maadaama ay href ii soo baxday href waxaan leeyahay space halkaas marka waxaan leeyahay class-ka ku samee class-kana marka waxaad nagu bixisaa waxaan u bixinaa btn baan u bixin doonaa halkaana waxaan ku qoran doonaa marka tusaale waxaan leenahay read more oo kale waxaan leeyahay Ctrl+S ayaan siin doonaa qaybtan tagi doonaa refresh ayaan leeyahay marka waa inuu xaggan inoo soo galaa waxa weeyaan qaybtan hadda aynu soo dooranay wata qaybta halka inoo soo gashay sidaa awgeed waxaan leenahay nidaamkan oo kale inaan kasoo dhigno oo button aynu soo siino sidoo kalena waxa weeye qoraalna ay ku qoran aynu midabkiisa soo bedelo okay intaas aynu sameeyno waxaan tagi doonaa maadaama aynay HTML-ku aan access u lahayn waxaan tagi doonaa CSS-kana waxa weeyaan class-ka aynu soo sameysanay aynu ula baxnay waxa weeyaan btn ayaan soo dooran doonaa marka class-aan doorto waxaan ka horeysiin doonaa calaamadda waxaa loo yaqaano .c class-ka inuu ku tilmaamto marka waxaan qori doonaa btn ayaan ula soo baxay waxa weeyaan class-ka waxaan leeyahay shift iyo press ayaan isku qaban doonaa enter baan siin doonaa marka enter markaan siiyo waxa ay soo bixi doontaa marka waxa weeyaan qaybtii aan ku qori doonay waxa weeyaan declaration-ka ku sameysan lahaa declaration-ka koowaad aan sameyn doonaa waxa weeyaan inaan siiyo body-na waxa weeyaan waa inuu ducaha iyo xagga sare iyo xagga hoose iyo labada dhinacba inuu waxa weeyaan cabir gaara aad ku saleysatid inta uu ka durkayo marka waxaan leenahay cabirka ugu horeeya qaybta ugu horeeya waxaa lagu horeysiin doonaa qaybta topka waxaan leenahay 10 pixel xagga sare ka soo durko qaybta waxa weeyaan right-kana waxa weeye isagana 15 pixel ka soo durko labada dhinac oo kale uma baahni labadaas ma asan garan doonaa
waxaan tegi doonaa markaa refresh baan leeyahay marka xaggana iyo xaggan waa inuu inooga soo durkiya marka sidaa awgeed labadii dhinac ayuu inooga soo durkiyey xaggan 15 pixel oo right-ka ayuu inooga soo durkinayaa xaggaa sarena wuxuu kala durkinayaa maxay wax loo yaqaano 10 pixel intaa markaan soo sameeyno waxaan leenahay waxaad u sameysaa qayb loo yaqaano background wuxuu noo asteynayaa inuu waxa weeyaan inta uu qoraalkaasi ku fadhiyo dhammaanba inuu background siiyo background waxaan leenahay midab ahaan waxaad ka dhigtaa dark blue baan leenahay control plus s baan siin doonaa marka dark blue markaan siiyo waxaan leeyahay soo refresh garay sidaa awgeed waxa weeyaan qaybtaas saas uu soo refresh gareynayaa midabkaasi inoo geliyey midabkiina waxa weeyaan waxaan u sameyn doonaa wax loo yaqaano inaynu hareeraha ka soo xoodno rounded aynu ka dhigno rounded saan uga dhigno waxaan isticmaali doonaa declaration loo yaqaano ama waxa weeyaan attribute loo yaqaano border radius waxaan cabiri doonaa marka haba inta aan u baahanahay inaan cabir ahaan siino waxaan ka dhigi doonaa marka 8 pixel baan ka dhigi doonaa 18 pixel baan ka dhigi doonaa 18 pixel markaan ka dhigano waxa weeye xagal kasta wuxuu noqon doonaa marka mid soo xoodan ayay noqon doontaa oo qaab noocaas u salaysan xogta inoogu qoran waxaan leenahay kalarka si fiican looma arko kalarka waxaad leedahay farta kalarka inoo muuqatana waxaad ka dhigtaa white smoke ka dhig sida awgeed ama white caadi baan ka dhigi karnaa ama white smoke labadaba okay inta markaan sameysano waxaan leenahayna sidoo kale Allahu musta'an text decoration-ku wuxuu inoo sameyn doonaa inuu inooga dhigo waxa weeyaan nan baan ka dhigan doonaa text decoration control plus s baan leeyahay sida awgeed text decoration-ku waa underline ka hoose oo xariiqa hoos yaala marka xariiqana uma baahni refresh baan leeyahay marka waanu xariiqina ka saaraa fartana uu ka dhigaa mid waxa weeyaan toos u muuqata inta markaan soo sameeyo waxaan leenahay inta waxa loo yaqaanaa marka waa qaabkii aanu soo sameyn lahayn ankarkii okay inta markaynu sameeyno waxaan leenahay waxaan ku noqon doonaa html-kii waxaan rabaa inaan soo sameeyo waxa weeye qaybahan hoose inaan soo sameeyo qoraalkan aan ku soo qortay courses over oo kale waxa weeyaan aan waxa weeye qaab noocaas marka aan u sameeyo intaas aan soo sameysto waa inaan xaggan taaga html-kan tagi doonaa halka waxa iga dhiman dhif kale aan ku darsan doonaa si aanay waxa weeye hadhow aan saameyn ugu yeelan dhifka kale ayaan halka ka xidhi doonaa marka laba dhif ha u dhaxeeya waxaan leeyahay marka body baan tagay enter baan leeyahay dhif xidhan iyo body oo xidhan dhexdiisa waxaad ka sameysan doonaa qayb loo yaqaan section ka waxaan leenahay waan soo furi doonaa enter baan siin doonaa section ka waxaan leenahay class u samee class aad u sameeysid waa in indicator-kii tilmaamtaa class-ka sida awgeed waxaan leenahay class-ka magacaad u bixin lahaydna waan qori doonaa title baan leeyahay dan enter baan siin doonaa class-ka iyo title-ka oo wada socda ayuu marka ku sameyn doonaa okay inta markaad sameeysid waxaad leedahay enter c halka waxaan ka furi doonaa wax loo yaqaan qayb h1 waxaan siin doonaa marka courses over ayaan ku qori doonaa courses over dan waxaan leenahay control plus s waa inay courses over ay qaybta markaan joogno waa inay noo soo baxdaa marka waxaan leeyahay refresh waayay courses over waxay nooga soo baxday xagga hoose maadaama ay nooga soo baxday waxaan leeyahay qaybtaas waata halkan haddaan hoos u socdo waata courses over halka nooga soo baxday okay inta markaan marayo waxaan u imanayaa CSS si aan marka aan ugu saleeyo qaybo kale waxaan leeyahay marka waxaan soo sameyn doonaa qaybtan hadda ila aragtaan qaybtan ayaan soo sameyn doonaa oo waxa weeye waxaan leeyahay qoraalada inta gidaarka ka durki qaabka ugu aseen garay waxa weeye xaggan iyo xaggaaba waxa weeyaan cabir si wanaagsan loo arko uga muuqato marka waxaan leenahay qayb baan soo sameysanay section waa bila indicator weeye sida awgeed wax kalaas iyo wax idea male waxa weeye waa tagga caadi baan soo tilmaamsanaynaa waxaan leenahay briefki soo furo briefki ayaan soo furan doonaa halka dhexdiisa waxaan ku qori doonaa marka qaybta ugu horeyso sectionka waxaan siin doonaa wiriskeeda waxaan ka dhigi doonaa qaybta wiriska waxaan siin doonaa boqolkiiba 80 meesha qabsato waxaan leenahay marka boqolkiiba 80 marka siin doonaa boqolkiiba 80 waxa weeye cabirka oo dhan ha qabsato sidoo kalena margin haddii aan u sameynayno waxa weeyaan aynu hareeraheeda aynu isu soo dhaweynayno waxaan leenahay hareeraha qaybta ugu horeysa oo bottom-ka ah ama qaybta ugu horeysa waxaan leeyahay top-ka ah waxaad ka dhigtaa isagana 80 pixel ka dhig oo waxa weeyaan inta top-kana 80 pixel ha koob inta kalena auto ka dhig inta kalena automation how isagu waxa weeye how door waxaan leenahay marka refresh kale qaybtii baan tegi doonaa refresh baan leenahay hadday la aragtaan marka wuxuuna siin doonaa okay space-ka badan buu ina siiyey waxa weeyaan space-ka badan oo boqolkiiba 80 inuu waxa weeye
allada wada qabsado ayaan ka dhigay marka intaas waa sectionka intaasaan u dayn doonaa waxaan u iman doonaa waxa loo yaqaano sectionka waxaa ii xigay class loo yaqaano aan usoo bixinay theater wuxuu wakiil ka yahay marka qoraalkan iyo midab ahaan qaabka uu muuqanayo iyo qaabka fartiisa iyo qaabka loo soo weynaysiinayo ayuu mas'uul ka ahaa marka waxaan leenahay classka waxaan u samayn doonaa theater dot baad ka horeysiinaysaa waxaan leenahay theaterkii shift baad leedahay waxa weeyaan enter baad markaa waxa weeye aad siinaysaa dhexdiisa waxaad ku qori doontaa declarationka koobaad aan samaysan doonaa waxaan leenahay farta marka hore text align hay noo noqoto oo alignmentiga ama positionka farta oo leysa mid ah centerka inooga dhig qodobka labaad aan xusi doonaana waxa weeye font size-ka cabirka aynu qaadanayna ama font size-kana waxaan ka dhigi doonaa Allahu musta'aan kariim waxaan ka dhigi doonaa aynu dooran doonaa mid markaa large marka waxaan u baahanahay inaynu x large doorano kanaan markaa ku dhufan doonaa markaa oo inoo weynaysiin doonaa farta si qurux badan inoogu soo muuqanaysa okay intaa markaa sameyno farta waxa weeye bartanka inoo taala waana far waaweyn ayay inoo noqotay intaa markaan soo sameeyo waxaan u baahanahay marka inaan qaybihii kale soo gelino qaybahan soo gelinaya waa labadan qaybood okay labadan sawir waa inaan soo geliyo okay conditionka koobaad oo loo baahan yahay marka hore maadaama ay rabno inaynu laba column ama frameka noocaas inaynu sameeyno xaggana sawir ka muuqdo xaggana sawir ka muuqdo marka hore labada sawir aad soo muujinaysaa waa inay scale ahaan ay isleeyihiin dimensionkoodu waa inuu isku mid u yahay aanay kala weynayn marka labadaas marka ay isleeyihiin waxaa access ku siinaysaa marka inaad labadiiba aad waxa weeyaan aad laba column iyo laba row aad kala siin kartid okay intaa markaynu sameyno waxaanu iman doonaa qayb loo yaqaano line inaan soo gashano qayb loo yaqaano line marka line halkan markii maraynay line mayna soo dooran oo html-ka waxaan soo siin doonaa qayb loo yaqaano line marka linekaas wuxuu inoo tilmaami doonaa inuu inagu daro line yar oo waxa weeyaan inoo tilmaami doona hadhow class marka halkaas waxaan ka furi doonaa class waxaan leeyahay dot waxaan la bixi doonaa line marka inter baan siin doonaa marka class buu igu samayn doonaa classkan wuxuu bixin doonaa line buu bixin doonaa sidaa awgeed waxaan leeyahay linekaas ayaan hayay qaybtan u iman doonaa save baan leeyahay linekaas aan u iman doonaa marka line haddii halkan ka aragno okay lineku waa ka halka inugu samaysan wax riiqa yaro halka inugu samaysan saantan ugu soo sameeyay xaggan aan tegi doonaa waxaan tegi doonaa marka qaybtan aan tegi doonaa halkaas waxaan ka furi doonaa dot baan leeyahay dot waxaan u soo baxay midabka indicator-kan ula soo baxay wuxuu ahaa line okay line waxaan dooran doonaa marka lineka ayaan bracekiisii line baan ku qoran doonaa lineka ayaan bracekiisii soo furan doonaa lineka markaan braceki soo furto waxaan leeyahay lineka widthkiisa koobaad horta waxay noo noqdaan 150 pixel waayo cabirkiisa 150 oo waxa weeyaan balac ahaan ah noo noqdo heightkiisana waa team baan ka dhigi doonaa heightkiisana waxaan leenahay ilaa iyo 2 pixel oo height ah ka dhig yaana aad u badnaan sida awgeed waxaan leenahay haddii aan u baahanahay border radius waan gashan karnaa hareeraha waan kasoo xoodi karnaa isagana waxaan leenahay ilaa iyo 10 pixel oo waxa weeyaan soo xoodan ka dhig refresh kare xaggan intaginaa doonaa marka refresh baan leenahay sida awgeed bottonkii wuxuu noqon doonaa marka mid qaabka inugu samaysma linekii markaa qaabkaas inugu samaysan doonaa lineka waxaan ku darsan doonaa markaa inaan idhaahdo waxa weeyaan midab inaan soo siisto okay refresh baan leeyahay okay inta uu soo baxayo ayaan xaggan tegayaa waxaan leeyahay background igu samee waxaad igu samaysaa background oo kaliya background-kan waxaad ka dhigtaa midabkiisa dark blue iga dhig dark blue dark blue ayaan leeyahay inter baan siin doonaa control plus s baan siin doonaa xaggan aan tegi doonaa refresh ayaan leeyahay marka waayahay refresh ayaan leeyahay marka waa halkaa yaala sidaa awgeed halkaa markaan marayo waxaan leeyahay isagana margin baan samayn doonaa oo waxa weeye inaan qaybtaa dhexda soo dhigo weeyaan qoraalka uu fadhiisto margin baan leeyahay marginka waxaan leeyahay markaa qoraalka lineka yari marginkiisu hay noqdo inuu intaa uu ka soo guuro okay margin inter baan siin doonaa waxaan leeyahay 10 pixel ha ka soo guuro dhanka waxa weeyaan bidixda waxaan leeyahay dhanka waxa weeye sare 10 pixel ha ka soo guuro sidaa awgeed qaybta labaadna waxaan siin doonaa auto baan siin doonaa oo waxa weeyaan automatically
auto oo automatically ah ama automation buu marka inta kalena igu siinayaa. waxaan leeyahay refresh karaya marka. sidaa awgeed courses waa inuu halkaa uu ku fadhiistaa. marka intaas hadda way noo dhammaystiran tahay. waxaynu soo samayn doonaa qaybihii labada sawir. aadna moodin in labada qaybood oo uu yar rakiika ayna yihiin qaabka loo sameynayo. marka halkan markay marayno waxaan soo samaysanaa in hore u soo samaysanay qayb loo yaqaan section waxaan ku soo salaynay inay tahay waxa weeyaan html ka waxaan nidhi section baan samaysan doonaa. sectionka markaan samaysano qaybta koobaad waxaan leenahay maadaama uu dhifkaasi halkaa inoogu xidhan yahay dhifka intersin halkaa waxaad ka samaysataa dhif kale ka samayso. dhif kale aad ka samaysanaysaa waxaan nidhi marka hore dhif intaanan samaysan waa inaad class samaysataa. class baan ka horeysiin doonaa. classkana waxaanu la bixi doonaa column baynu la bixi doonaa. okay classka waxaan la bixi doonaa in horeysiin doonaa class row ayaan soo samaysan doonaa iyo class column. classka row markaan soo samaysan enter baan leeyahay. halkaan waxaan leeyahay class column ka samee. column markaad ka samaysata enter c. dhexdiisa laba column waxaan haysanaa column iyo row baan haysanaa. dhexdiisa waxaan leenahay waxaad ka soo muujin kartaa sawir soo geli. sawirkana waxaan dooranaynaa marka image2 ayaan dooranaynaa. I think image 2 gaasna ayaan ku dooranaya marka Ctrl+S baan leeyahay. sidaa awgeed waxaan leeyahay qoraal raaci h1 ayaa dooranaysaa. h1 na waxaad leedahay tusaale oo kale video editing oo kale ka dhig. way video editing ayaan siin doonaa. haddana waxaan leeyahay paragraph raaci bdaasaan furi doonaa. waxaan leeyahay lorimna waxaad ka dhigtaa inta qoraalkaaga aad u baahantay. marka lorim waxa weeyaan waa sample tags oo kale. waxaan leeyahay 20 ka dhig marka line oo waxa weeye 20 waxa weeye kelmadood aanu ka badnaan. intaas aan leeyahay Ctrl+S baan siinayaa. haddana xaggan aan tegayaa marka dhifkaas oo waxa weeyaan kana ayaan copy garaysan doonaa ilaa intaasaan socodsiin doonaa. waxaan leeyahay intaas oo dhan ii copy garay marka Ctrl+C baan leeyahay. halkan aan tegi doonaa. waxaan leeyahay Ctrl+V. sidaa awgeed laba qaybood buu iga dhigi doonaa. qaybtana waxaan leeyahay midabka halkaa ka soo bedel. midabka maaha waxa weeye extension ka soo bedel. waayahay halkaa sawir baan soo gashan doonaa. sawirkii labaad waxaan leeyahay AMG category ayaan dooran doonaa. dadana Ctrl+S baan siin doonaa. xaggan aan tegi doonaa refresh baan leeyahay marka labadii sawir waa ka xaggan ay soo galeen. waa kuwa marka way hoos yaaleen. waa maxay way hoos yaaleen. okay waxaan ku soo darsan doonaa qaybtan aan ka tegay. waxaan ka tegay qaybta labada qayboodba. paragraphka markaan soo samaystay waxaan ku xusi doonaa oo ka dhamaysin doonaa paragraphka lifaaq baan ka dhamaysin doonaa loo yaqaan line-kii aynu markii dhow soo gashanaynay. waxaan furi doonaa marka baan furi doonaa ankara. waxa weeye waxaan leeyahay qaybta dhexdeeda eeda ankarka ah waxaad ku samaysataa waxaad ku la baxdaa. okay class baan la sii bixi doonaa. classka waxaan leenahay btn baan siinaya. Ctrl+S baan leeyahay. sidaa awgeed intaasaan copy garaysanayaa. waxaan leeyahay Ctrl+C. qaybtii labaad baan ka dhigayaa marka isagana xaggan tegayaa. doodasaan u wadayaa. okay waxaan rabaa halkaas inaan waxa weeye qaybta ku samaysto. marka waa inaan xaggan taga. waa inaan halkaa enter siiya. halkaas waxaan leeyahay Ctrl+V. then waxaan leeyahay refresh. marka qaybta waa inuu buttonkii qaybta ay soo geliyay. buttonkii waa kan kii kalena waa kan. marka hadda wax xoga kama muuqato. marka xog baan ka soo muujinayaa. waxaan leeyahay halkaa waxaad ka dhigtaa read more oo kale. xaggana waxaan leeyahay sidoo kale xaggana waxaad ku qortaa read more ku qor si uu markaa waxa weeyaan uu inoogu soo muuqdo qoraalkii. sidaa awgeed waxaan leeyahay refresh kare. marka qaybta waxba uguma baahni inaad kasoo bedeshid oo bottonkii hore ayuu qaadanaya. laakiin qaybta rabna in wax kasoo bedelnaa waa inaan kan kala durkino. waa inaynu labada waxa weeyaan aynu hal frame aynu ku salayno oo waxa weeye labadu isbarbar yaalin. si intaa u sameyno intaaba waxay noo qabanaya CSS ayay noo qabanaysaa. CSS baan tegi doonaa. waxaan ka dooran doonaa marka qaybta ugu horeysa ka ugu horeeya classka ugu horeeya waxa loo yaqaanaa alaa mustacaan row baa loo yaqaanaa. marka rowgan ayaad markaa soo tilmaamsanaysaa. halkan aad ku noqonaysaa. rowgu wuxuu inoo yahay class buu inoo yahay. waa class. okay rowgo class noo ah.
rowga classka marka waxaan siin doonaa xaggan tagi doonaa waxaan leeyahay dot row baan siin doonaa marka rowga waxaan leeyahay soo fur bracekiisa soo fur dhexdiisa waxaad ku qortaa horta displayga u muuqanaya qaab waxa weeyaan slack ha u muuqdo displaygiisuna waa qaab slack oo shaashada hal leekaado waxaan leeyahay marka mid falaxi ka dhig qaybta labaad waxaan siin doonaa marka falaxi markaan soo sameeyay waxaan leeyahay alay itemkiisa shay kasta oo ka muuqanayaana itemkiisasina waxa weeyaan itemkiisasina mid centerka kasoo muuqda ha noqdo labada markaan sheego waxaan leeyahay justify contentigana spaceka labadoodu isku jirayaan justify baan leeyahay spaceka labadoodu isku jirayaan miyaanu noqon mid isku dhegan oo mid space ah oo waxa weeyaan space u dhaxaynayo ha noqdo yaani ahaan mid isku dhegan sidaa awgeed waa refresh garaynaya marka wuxuu noqon doonaa marka wuxuu noqday mid marka qaabka inuu samaysan I think in aragtaan labadii waxa weeyaan hal frame bay ka soo muuqdeen laakiin wali size-kooda ayaa badan hadda waxaan leenahay intii uu inoo qaatay oo waxa weeyaan uu kala goyn doonaa marka inta markaan soo samaysano waxaan leenahay haddana waxaan u iman doonaa qaybta labaad rowga markaan soo sheegno waxaan leenahay rowga kaliya maaha class rowgii soo qaado haddana waxaan leenahay si aan u kala fujino waxaan leenahay column-kiina soo qaado column-kuna class buu ahaa labada markaan soo sameeyno waxaan leenahay waxaan ku sii daraynaa img sawirada then waxaan leeyahay qaybtaas ayaan enter siin doonaa marka intaas waxaan leeyahay horta wiris ahaan mid walba cabirku qaadanaya balac ahaan ha noqdo 90% oo 10 kaliya ha ka banaanaado 10 kaliya ha ka banaanaato sida awgeedna waxaan leeyahay labadoodana waxaad sameyn kartaa labada aan soo tijaabino aanu value-ga soo tijaabino refresh garayno marka okay wuxuu noqday marka waxa weeyaan inuu mid kasta meeshiisa oo fixed ka dhigo oo waxa weeyaan intaas 10 kaas baa ka dhiman gidaarkana 10 baa ka dhiman kana dadana 10 baa ka dhiman halka space between kiina weeyaan labadooda u dhaxeeyay inta markaan soo sameeyo waxaan leeyahay qaybtan aan iman doonaa haddaan rabo inaan soo xoodo border radius-ka ayaan dooran doonaa isagana waxaan leeyahay tusaale 20 pixel ba xoodintooda ka dhig oo taa horena waan soo aragnay way fududahay then waxaan leenahay hareeraha wax ku dhigi doonaa mid lifaaq ahaan xoodan inta markaan soo sameeyo waxaan leeyahay column iyo rowga ayaan target ka dhiganayaa waxaan leeyahay iyagana waxa weeye intii in la mid ah ayaan soo dooran doonaa qaybtan ayaan waxaan leeyahay waxaad ii sameysaa okay waxaan leeyahay halkaas waxaan ka furan doonaa row sidoo kale waxaan leeyahay column labadoodaas ayaan waxaan siin doonaa marka display-ga haddana waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa isagana flexible falaxi iga dhig sida awgeed alay itemkooduna hay noqdo isaguna waxa weeyaan mid dhexda ka soo muuqda inta markaan soo yiraahdo center iga dhig then waxa weeye waxaan ku xijin doonaa falaxi hadaba flexible-kooda ama waxa weeye mid kasta inuu meeshiisa ku filaado direction-ka u dhaqaaqayaan ha noqdo mid qaab column u samaysan then waxaan leenahay refresh weeye sida awgeed mid walba waxa weeye haddii maanta la soo durkiyo haddii kaleba mid walba wuxuu noqon doonaa mid markaa bartiisa yaallo column ahaan u fadhiyo intana waxa weeyaan waa 10 pixel intana waxa weeyaan waa 10 pixel sida awgeed 10% ayay meesha oo dhan waxa weeye ay ka wada xigaan marka centerkuna saa inuu yaala okay inta markan ka imaado waxaan leeyahay qaybtan kama baan sameysanayaa haddana waxaan u yeeri doonaa class-kan u yeeri doonaa marka wuxuu noqon doonaa class dhamaantood aan rabno inuu wada mideeyo oo waxa weeye xogtoodana uu ka soo saaro mid markaa bartanka taala haddii halkan eegno xogtii bartanka oo hareerahanay taalay laakiin xagee nooga muuqatay bartanka nooga muuqatay si aan hadda labadan u soo kala durkiyo labada aan u kala durkiyo waa inaan isticmaalaa marka qaybtan oo dhan waa inaan u bixiyaa marka section-kii oo dhan waa inaan class u bixiyaa si aan hal mar u wada bedeli karo okay aan qaybta tago section waa kan section-kan class baan ula bixi doonaa class baan halkaa u bixin doonaa ama dot ayaad siin doontaa dotna waxaad raacin doontaa magaca rabtida aad bixisay event baan rabaa inaan u bixiyo event then waxaan leeyahay class-ka ayaan sheegi doonaa ama toos baad ugu qoran kartaa class intaasi halkaa waxaan u bixin doonaa marka event markaan idhaahno qaybtan intigi doonaa CSS tigi doonaa halkaa waxaan leenahay event ka samee
event markaad ka samaysid brace fur eventiga marka waxaad ka dhigtaa maadaama uu dhammaantoodba uu wakiil ka noqonayo waxaad sii raacaysaa marka qaybihiina saad u sii sheegtid waxaad leedahay dot row maadaama uu kalaas yahay haddana waxaad leedahay dot column maadaama isaguna kalaas yahay intaaba waxa weeyaan hal mar baan rabnaa inaan wax ka bedelno keen ka bedelayna rabnaana waxaan leenahay inaan ku salayno dhammaantoodba margin docda aynu ka soo durkinayno ha noqoto docda topka oo xagga sare ah xagga sare markaa waxaynu ka durkin doonaa cabir inugu salaysan laayo waxaan ka dhigi doonaa content buu caadi content baynu deyn doonaa waxaan leenahay refresh kare tan wuxuu noqon doonaa marka courseski iyo waxa weeye inta boqolkiiba content ay kala durkaan marka waxa weeye space saa loo kala helo okay inta markaan soo sameeynaa waxaan tagi doonaa hadana VS Code ayaan ku noqon doonaa hoos baan u socon doonaa inta markaan soo sameeynaa waxaynu xusi karnaa qaybaha okay waxaan leenahay qoraaladan seen u kala durkino kan waxaan leenahay midabka inaan gaarkiisa uga bedelaan rabnaa kana sidoo kale inaan gaarkiisa ka bedelan labadaas ee laba midab yeeshaan oo kala duwan marka waxaan leenahay qaybta tusaale waxaan kasoo bedeli doonaa waxaan leeyahay tusaale qaybta waxaad ka dhigtaa dambe qaybta waxaad ka dhigtaa qoraalka halka soo bedel waxaad ka dhigaysaa allah musta'aan kariim weeye intaas waxaan leenahay qoraalkaasi oo kala bedel labadooda kala duwanaada haddana halkan waxay nagu jirtaa h1 bay nagu jirtaa h1 class baan siin doonaa waxaan leenahay classkan siin doonaa ha noqdo heading oo kale ha noqdo ciwaan weeye kaasi kana sidoo kale ha noqdo isagana halka ku darso isagana heading weeye class bixi classka waxaan la bixi doonaa heading save kare refresh kare marka qaybtan tag refresh kare marka waxaan soo siin doonaa CSS intaan refresh kareyn xaggan tagi doonaa waxaan leenahay heading ka waxaan siin karnaa marka okay heading baan leeyahay heading maadaama uu yahay dot-ka hore si class aan u soo bixinay heading baan leeyahay marka heading markaan siiyo brace-ka dhexdiisa tag heading-kii waxaan soo siin doonaa marka color-kiisa oo kale waxaad ka dhigtaa baan oran karnaa coloradooda dark blue baan leenahay ka dhig dark blue sidoo kale waxaan siin doonaa haddii aynu assign garayno fartana waxaan ka dhigi doonaa font size oo kale waxaan leenahay font size-kan waxaan ka dhignaa wala musta'an font size-kan waxaan leenahay 3 view partiga u muuqan doonaa minimum ha noqdo ka ugu waxa weeye view partiga ama aragtida ugu yar oo kale oo 3 baan ka dhigi doonaa marka oo view partiga marka waxaan uga dhigi doonaa inuu midabka inoo bedelo aragtida ugu yarna inuu ugu salay waxaan ka badsan karnaa waxa weeyaan ilaa iyo waxaan oran karnaa 9 view ka dhig party baan qaybta oran karnaa refresh kare baan leenahay marka isaguna wuxuu access inoo siin doonaa inuu marka inuu soo weynaado marka aad buu u weynaaday qaybta I think in la fahmay waxa weeyaan marka isagana 5 oo kale ka dhig 5 I think in order tahay way 5 waa order waxaan leenahay marka qaybta marka taa u sameysay waxaan u iman doonaa sidoo kale margin-kiisa margin-kan inuu iman doonaa waxaan qaybta koobaad 10 pixel oo kale ka durug oo waxa weeye bottom-ka xagga sare qoraaladii weeyaan inaan kala durdurkino qaybta kalena auto ha noqoto automation kale ugu asalay tan waxa noqon doonaa marka inay labadana kala durkaan paragraph-kan iyo waxa weeye xagga sare inuu ka soo durko labaduba marka waa qaybtaasi wada qaateen waayi haddaba farta si ay ugu qurux badnaato farta waan soo wada bedelayaa waxaan tegi doonaa xaggan ugu sarreysa halkaa waxa weeye waxaan ka bedeli doonaa waxaan ka dhigi doonaa farta waxaad ka dhigtaa waan leenahay Times New Roman baan ka dhigi doonaa save baan leenahay xaggan leenahay refresh baan leenahay marka dhammaan wixii heading oo dhan iyo wixii paragraph oo dhan wuxuu ku saleyn doonaa Times New Roman inuu ka dhigo okay inta markaynu sameeyno waxaan leenahay haddii aan paragraph-ka rabno inaynu gaarkiisa inaynu wax uga beddelno paragraph-kan waxaynu dooran karnaa in isagana u soo bixin doonaa classes baan soo bixin karnaa oo waxaan siin karnaa Allahu musta'aan kariim paragraph-ka maadaama halkan uu yaalo waxaan oran karnaa waxaad bixisaa bara class baad u sameynaysaa class u samee classkiisa waxaad siisaa bara save kare kana sidoo kale isagana
class u samee maadaama paragraafka aynu rabno inay gaarkiisa isagana wax uga bedeli karno waxaan leenahay bara isagana oo barana paragraph baan ugu jeedaa okay inta markaan sameeyo xaggan tagaya waxaan leeyahay isagana dot baan siinayaa bara baan leeyahay tan brace of head marka sida awgeed bara waxaan siinayaa barinkiisa waxaan leeyahay isagana ha kala durko barinkiisuna wax weeyaan waxaan siinaynaa marka isagana inaan ka dhigno barin qaybta topka barin top baan leenahay dan waxaan siin doonaa inuu ka dhigo 8 pixel oo kale inuu ka soo durkiyo line-ka ay isku jirjiraan iyo line height-ka ay isku jirjiraana waxa weeyaan labadii line-kii sare iyo line-kii hoose inta isku jiraan isagana waxaan ka dhiganaa 20 pixel oo kale inay kala durkaan sida awgeed refresh gare haddii aad aragtay isbedelka marka uu kala durkaya kan iyo kii kale xogaa way kala yar durkeen xaggan space bay kala heleen marka qaabkaas ugu asan garan karnaa xaggan u baa inoo hadha inaynu sameeyno in iyadana hoos uga dhigno taana waxaan ku sii tilmaamsan karnaa waxaan leenahay baaraha waxaad u sameysaa border waxaad u sameysaa Allahu musta'aanu karim barinkiisa waxaan ka dhiganaa button oo xagga hoose ah xagga hoosena waxaan oran karnaa ilaa iyo 10 pixel ha ka durko oo 10 pixel xaggiisa hoose ha durugto sida awgeed refresh gare wuxuu ka dhigi doonaa marka 10 pixel inay labadani ay kala durkaan sida awgeed qaybtii sarena isagana haddii rabno inaynu qaabkaas oo kale ka dhigno qaabkaasaan ka dhigi karnaa marka waxaan leenahay paragraafka waxa mas'uulka ah iyo welcome tab waxa mas'uulka ah haddaynu HTML-ka dib ugu noqono waxa mas'uulka ah class-ka loo yaqaano okay class-ka loo yaqaano container sida awgeed container-kaasaan ku tilmaamsan karnaa aynu oran karnaa container-kaas aynu xaggan ku qoran karnaa waxaan leenahay halkaaba container dhig CSS ayaan leeyahay halka container dhig class loo yaqaano containerka waxaan sheegi doonaa marka containerkan u baahanahay waa ka biduna waxa weeyaan paragraph inoo ah waxaan leenahay marka isagana containerka markaynu bidaas siino waxaan xusi karnaa aynu tilmaamsan karnaa inaynu containerka waxaad ka dhigtaa Allahu musta'aanu karim midabkiisa ama barinkiisa oo kale waxaad ka dhigtaa qaybta koobaad su'aale waxaad nooga dhigtaa qaybta koobaad waxaad ka dhigtaa 10 pixel qaybta labaadna iska daa qaybta saddexaadna waxaad ka dhigtaa maxay isagana 10 pixel ka dhig sida awgeed qaybtan waa qaybtii topka xagga sare inta ka soo durki xagga waxa weeyaan right kana inta ka durki save baan leenahay refresh gareebaan leenahay marka waa inuu qaabkan u soo durkiya xaggana uu labadii u kala durkiya okay aan eegno paragraph laga yaabaa container qaabkan soo qarnaa inuu qaldan yahay aynu soo hubino container say u qoran tahay sida saxda ah container soo koobi karsan control plus c baan leeyahay halkan aan u iman doonaa waxaan control plus v sida awgeed container way saxan tahay container b daas waxaan rabaaba inaan ku tilmaamsado si aan u arko waxaan leeyahay tusaale colorkiisa si aan u ogaado inay isku xiran yihiin labada waxaan leeyahay colorkiisa kale waxaad ka dhigtaa dark blue marka waa inuu qaataa dark blue waa inuu u qaataa horena wuu ahaa dan waxaan leenahay qaabkaas markaa uu midabka waa ka qaatay okay midabka waa inoo qaatay waxaan rabnaa labadaas inay ay waxa weeyaan ay kala noqdaan laba kala duwan marka okay paragraph-kina kan inoo yaala class waan u samaysan karnaa laakiin waynu container-kan aynu ku salayno container-kan ayaan tigi doonaa waxa weeyaan b ayaan siin doonaa marka b ayaan siin doonaa qaybtaasaan ka tegay marka waxaan leeyahay 10 pixel of course weeyahay wuxuu ka dhigi doonaa qaybta hoose inuu ka hoos u dhigo tan hoosena waxaan leenahay isagana barinka adoo jooga ba waxaad leedahay barinka bottomka hoose ah dan waxaan leenahay barinka bottomka hoosena waxaan samayn karnaa inaynu ka dhigno isagana 10 pixel inuu xagga hoose uu hoos uga dhigo refresh garee marka isaguna tan hoos 10 pixel ayuu hoos uga dhigi doonaa marka body bottom 10 pixel baan siinay marka sida awgeed waa inuu qaabka marka inoogu muuqayo eekaada marka hadda waxaan u iman doonaa Allahu musta'aanu karim waxaan u iman doonaa qaybtan waxaan rabaa markaan saa calaamadda ugu dul dhifto sida qaybtan ay tahay inuu inoogu saleeyo sida qaybtani ay tahay inuu qaabka hoverka inoogu sameeyo marka waxaan tagi doonaa HTML-kan dib ugu noqon doonaa waliba qaybtii CSS-ka ayaan tagi doonaa waxaan ka eegi doonaa halka qayb ay ku qoran tahay hover waatan
okay hover baad dooran doontaa. hover waa kan. hover waxaan leenahay waxaad sameysaa qayb loo yaqaano borderka waxaan siin doonaa qaybta bottonkana waxaan leenahay markaa solid ka dhig. intaa keliya ayaad sheegaysaa. marka xaggana tegi doontaa, refresh baad leedahay. tin waxay weysaa markaan dul saarno wuxuu ka dhigi doonaa bottonkii inuu qaabka ka dhigo. waayahay qaybtan sidoo kale waxaan u tilmaamsan doonaa. waxaan leenahay iyada waxaad ka dhigtaa allahu musta'aanu kariim. waxaan ku salayn doonaa si aan u kala durdurkino. waxaan ku salayn doonaa qaybtii baan tegi doonaa hadda aan joognay. qaybtan joognay waxaan ku salayn doonaa ama xagganba waxaan ka raacin karnaa b. xaggan waxaan ka dooran karnaa b. tusaale halkaa markaan marayno ayaa waxaad leedahay br baad furi doontaa, refresh baad leedahay, save baad leedahay. xaggan ay leenahay refresh. markaa wuxuu noqon doonaa mid saa u kala durka. marka qaybta ayaynu marka cashirkeenu ku baraagtigaraynay. waxa weeyaan qaabka saasay u dhan tahay. marka insha allah biidnillah idinkuna soo practical gareeya. halkaasaan kasii anbaqaayo doonaa qaybihii kalena. asalaamu calaykum.